واي بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda kala duwan ee warbaahinta qaranka. waxaanan codsan lahaa maadaama aynu ku jirno xaalad corona in la yara kala durko oo la yara taxadiro. intaa kadib tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii caasimadda ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dawladi jirin dalkana ay iyagu mas'uul ka yihiin. waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelina oo inagu boorinayo inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena. waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen wadamo badan oo aynu saaxiib nahay, gaar ahaan wadamada carabta, oo markay maqleen caasimadda dhexdeedii oo laga leeyahay dawladda ma jirto aad u warwaray. xalay ayay wasaaraddeena arrimaha dibaddu soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen. laakiin halkan waxaan idinku yeedhay in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno oo la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena u ekaysiinaysay mid madow. muddo aad u dheer Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabtu waxaa ka dhaxeeyay xiriir walaaltinimo, mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aad u qoto dheer. xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa. dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dawladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn. ilaahay ha u naxariisto Sheekh Zayed bin Suldaan Al Nahyan wuxuu ku qornaan jiray quluubta shacabka Soomaaliyeed, aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaataynaya kuma samayn, wax taraya mooyaane. iyadoo waxaa soo dhami jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii madaxda dawladda Imaaraadka u qaabilsan arrimaha dibaddu ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba, waxa galay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyaba waxa shaki ah oo inay isweydiiyaan in Imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda Soomaaliyeed. habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dawladda Soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal. si kasta oo loo tuhmayay oo loo tabanayay oo ay wuxuu muuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dawladda ku khasbayay in ay ilaaliyaan wanaagga. haddaba dawladda Imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor ku soo sheegay midabka kala lahayd oo aan meel ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda, qaynuunka caalamiga, walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka Carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka. warqadda Imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dawladnimada Soomaaliya oo ay dawladda inkirayaan, taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dorhaadi ahaa dawladnimo jirto iyo warqadda dawladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan. warqadda waxaa ka muuqda in Imaaraadku uu ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac. waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada horarka ah ee fawdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay, mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagaxa ee dawlad la'aanta. warqadan waxay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdoodaba u cadaysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dibadda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan. dibindaabiyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga, waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso, waxaana ka dhalan karaa sharci jebinta mas-uuliyad. waxaa kaloo warqadan ka soo baxday dawladda Imaaraadka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, ay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dib u xusuusisay maalin la saxaxay heshiiska 17 Sebtembar 2020 mida madaxdii heshiiska saxaxday isla maalmihiiba ay u safreen Imaaraadka. kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata, mar walbana keenaya caqabado hor leh. dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg
ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka Soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiinta. dadka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeen ugu diidan yihiin nabadda, horumarka iyo wanaagga. annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay. shacabka Soomaaliyeed waxaan u cadeynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka baabiinaya. waxaana muhiim ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan, waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, inay fahmaan waxa lala damacsan yahay wax dagaal sokeeye inuu dhaco si loo xalaalaysto dhulkooda iyo baddooda oo haddaba muran la geliyay. waxaa laga yaabaa in dadka qaar yiraahdaan haddii walaaladeen inagu qaldameen inagu maan ka roonaano oo maan ka aamusno oo ayaynaanu jawaabin. cajiib, haddii maanta aan ka aamusno dal dhan oo walaalaha oo shaqiiq ah oo leh statementkoodii baan rabaa saddexda erey ku jira inaan sii sheego. dagaal iyo qalalaase ayaa hadda ka socda. there is ongoing violence in Muqdisho. hadduu socdaa bay ku leeyihiin dagaal baa socda. xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa, territoriyatin bay noqotay, way ka sii daraysaa. Soomaaliya dawladda kama jirto, way dhamaatay. inteeran baa loo guuray. waxaynu ka soo baxnay 2012 ayay rabaan inay nagu celiyaan dawlad la'aanta. hadallada warqadda ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xalay hadallada ku jiray heestii abwaan cabdiqays ahaa ku wiirsaad lahayd oo noloshaba hawaaye aniga awoodkayga iyo waqtigaygu gelinoo weynuhu idaayey waxba iyo lama harin. wax alla wax runtii warqaddaa ku qornay la hareen ma garanayo. aniga awoodkayga iyo waqtigaygu gelinoo weynuhu idaayey waxba iyo lama harin. dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay yidhaahdeen. xaaladda Muqdisho way ka sii daraysaa bay yidhaahdeen. Soomaaliya dawladda kama jirto ayay yidhaahdeen. haddii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmaddii carbeed ee odhan jirtay as-sukuut calaamatu rida. aamusku waa waxa lagu garto inaad raalli ka tahay waxaad ka aamustay. nidaar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyey aamusko. sukuutka wuxuu yidhi waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajc iyo alam. wuxuu ku aamus haddaad ka aamusto gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii. taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin, hiddana uma lihin, sinaan ayaanu dhaqan u leenahay, inaanu bini aadamka la siman nahay. Soomaaliya waa dal xora oo madax bannaan sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay United Nations Charter. madax bannaanida dalna lagumaba xadgudbi karo. madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale, bad iyo ballac iyo juqraafi toona. dalka ugu yar ee 100 kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion kaahi according to the international law waa isku xuquuq. dadku way siman yihiin, midna caarma dheera. sovereigns are equal and have equal sovereignty. all states are equal and have equal sovereignty. dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay. arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadaynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. arrimaha gudaha ee Soomaaliya mana jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa. dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro. sababtaa darteed waxaan rabnaa inaanu u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo waddamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashada ay tahay arrin gudeed, internal and domestic affairs. waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fakaraysa faragelin inay dib uga joogsato. ciddii aan wanaag iyo horumar nagala shaqaynaynin fadlan dhib inagu filan faraq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dhib kale anoogu dareen. haddii aanad horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxayo ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno. qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeenna maanta
waxaa farax gelinaya waa garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheenna imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanaan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii mawlaana jalaaludiin ruumi ee ahayd look at my eyes they are small but they say any more things indhahaygu way yaryar yihiin laakiin wax badan bay u jeedaan waxaa laga yaaba inay isla yihiin soomaaliya waa dal soo koraya oo soo dhismaya soo kabmaya laakiin wax badan ayaa inoo muuqda waa inuu jeednaa ugu dambayn iyadoo waxaasoo dhan ina lagu sameeyey annaga oo ah dal iyo dad ka soo kabanaya burbur iyo dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xumaa waxaan dowladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynayaa inay noo fasirto hadalkaa gefka ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato ma rabno kelmaddeedaa ugu dambaysa u fiirsada ma rabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab ma rabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacab aad iyo aad baa umahadsantihiin su-aaluhuna way inoo furan yihiin waxaa tiri dowladda imaaraadka qoraadkeeda waxaa ku jira in dagaal uu muqdisho ka socdo madaafiicdii iyo rasaastii habeenka dhaweyto carruurta iyo waayeelka muddada ka sameeyey magacaan dagaal ahayn oo aad idinka bixinaysaan baa jirta arrintaa waa tii raatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble sida fiican uga hadlay dhammaan caalamkana fariintaasi way gaadhay in magaalada dhexdeeda lagaga dhawaaqay inaan dowladi jirin oy maleeshiyaad yidhaahdeen dowladda ma jirto annagaa meesha ka dowlada marka su-aashaa waxaan malaynayaa jawaabtii su-aashaadi waad qaatay ra-iisul wasaaraha ka jawaabay dowlad kale oo aqbali lahayd dunida state houseka nairobi ama aradkiile odaga addis ababa ama jabuuti haddaad madaxtooyada horteeda ayaan odhanayaa dowladi ma jirto adaa garanaya magacaad u bixinayso haddaad mahadsantahay cali su-aashaasi hadda waxaan u malaynayaa inaad topica ka yar baxsan tahay maad dhegeysan baan u malaynaya statementkaygii statementkaygu wuxuu ku saabsanaa iyo warkaan sheegayaa arrintii warqaddii ka soo baxday dowladda aynu walaalaanahay imaaraadka kaasoo aanu nidhi waxaanu u baahan nahay bal inaad noo fasirtaan oo aad dib isugu noqotaan oo wixii aad qorteen waa wax la aqbali kara maahee aa cudurdaar ka bixisaan inta ha maya waxaa dowladnimada haddaama waxaad rabtaa in la idhahdo dowlad ma jirto waxaasaad rabtaa adigu ha miyaad rabtaa adigu miyaad adigu saacadii wasiir haddii ay fasiri waayaan imaaraadka haddii ay fasiri waayaan taladan u jeediseen oo warqadda inay idin fasiraan iyo statement ka soo baxay maxay idin leeyahay dowladda soomaaliyeed annagu diblomaasiyaddu dee janalakaasay leedahay waxaanu leenahay waxaan bal horta hala fasiro dib hay isugu noqdeen madax waaweyn buu leeyahay dowladda imaaraadka shuyuukh bay leedahay warqaddan wasaaradda arrimaha dibadda laga soo qoray kolley waxaan filayaa in wax ka soo noqon doona waxaad meesha ku qorayna wax la aqbali karayo dal qurina aqbali karayo dunida maaha xukuumaddu go-aan bay soo saartay ah inta xaaladan corona lagu jiro in la joojiyay suumaatinada xukuumadda go-aankeedii golaha wasiirada ka soo baxayna isma bedelin waxa la fulinaya ciidamada amnigu ay fulinayaanna waa taa waxaa runtii nasiib darraayna waxay idin meesha maleeshiyaad yimaadaan ay bahashu aada u qarribanto laakiin go-aankeennii xukuumadda ee golaha wasiirada ilaa go-aan kale uu yimaado uu bedelo sidiisibu intact uu yahay aad baad umahadsantahay su-aashaa
qabsoomin waqtigiina loo asteeyena waa lasoo dhaafay dowladda federaalka maxaa kaga qorshaa maadaama ilaa hadda madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland aysan muqdisho soo xadirin inta kale ay soo xadireen runtii inkastoo aanay xiriir la lahayn topigeena oo aynu hadda ka hadlaynay warqaddii ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda haddaan in yar ku noqdo waad aragtaa tanaasulka shacabkii soomaaliyeed iyo dunida oo dhanna way aragtaa hadda madaxweynuhu markii hore garow soo jeediyey waxaa la codsaday mee muqdisho haddana in baydhabo la isugu tago guddidii waa lagu soo heshiiyey gogol kaluu dhigay mar walba waxaynu rabnaa oo nin doorasha inoo qabsoonto dowladda waxaa ka go-an iyo hoggaanka xukuumadda in dalkan doorasho ka dhacdo haddii waad arkaysaa in la jiidayo oo aan la rabin in doorasho dhacdo waxaa laynala rabaana waxa weeye in dib laynoo celiyo innaga waxaa inaga go-an in doorasho dhacdo wax kasta oo tanaasula madaxweynaha waa kii baarlamaan ka hadlay waad xasuusataa inta jeer uu tanaasulay waad ogey ilaa haddana waa sii wadaynaa ma naqaano intu dee socon doono waan wadaynaa laakiin inta doorasho dhacayso ee laysu imanayo ilahayna waxaan ka rajaynayaa dalkeenna oo barwaaqo ah oo doorasho ka dhacday si nabadgelyaa inoogu dhacday oo aynu wada guulaysanay baan ilahay ka rajaynayaa niyaddana waxaan rabaa in shacabku khayr u sheegaan dadka meelaha wax ku qorqoraya iyo waaqacu waxaan rabaa inay kala duwan yihiin aanu sheego magaaladu waa nabad gacan ammaana bay ku jirtaa waxaynu u samaysanay ciidamada amniga inay amniga aynu ku seexanno oo ay shacabku ku seexdaan shaqadiina waynoo hayaan dalkuna waynoo degan yahay si fiican buu socdaa dhaqaalaheennuna wuu socdaa dadka jecel dib u noqono waxaan rabaa inaan fursad la siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin والله أنا قد تهمة أنا بانو قمنا هذا بقى عن شيء يوه قعمش الشيء ينقول شراء لكن ده كتنا قعمها الشيء ينقول شراء دور الشيء إنه ذلك إنه يهلكن كنا جديك هالك إنه ربنا إنه نور هالراب إنه جماعة باتشنا يسوع ودلالنا ووضعنا تناسلك مدة أردم هذا ما والله وضع أركي عند واحد ديدن إنه هروس عنه لكن حربنا إن يعني حالتنا قف ولي بعد Soomaaliya oo arko ilaahdo dawladdu wax walba way samaysay still wadadii baan ku taaganahay doorashadana waa ku dadaalayna inay qabsoonto si fiican inoogu qabsoonto ducadana soo badiya aad iyo aad u mahadsan thank you very much